gudbayno gowraca shabaabka inaan ka gudbayno buuma gudaalkooda Hirshabeelle beledweyn iyo goob walba cadow lagu baxsanayna waan tagi doonaa sharafay noo tahay iyadoo in hogaaminayso gudoomiye ku-xigeenkeena koowaad xildhibaan qaran wasiirkeena wasaaradda haweenka wasiirada aan u jeclahay walaalkay Cabdirasaaq aad u mahadsantahay oo habeen iyo maalin nala shaqeeya goob walba iyo waqti walbaba gudoomiye ku-xigeenkayga maamulka gobolka Banaadir waxaan nala socdaa la taliyaha madaxweynaha dhanka arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka Senator Muna walaashay gudoomiyaha degmada warta nabadda gudoomiye Zainab gudoomiyaha degmada Cabdicasiis ayaa nala socota gabdhaha haweenka qaranka nala socdo gudoomiye ku-xigeenka ay joogto dhammaan haweenka Soomaaliyeed la taliyaasha iyo saraakiisha sarsare wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasiir Khadiijo dhammaan hadafkeena ay nagu hogaaminayso marwada madaxweynaha maadaam Sahra walaasheen maamada qaranka waxaan leenahay ehelka iyo asxaabta iyo waxaan u nimid ciidamada goobtan xaqiijiyay inaan jawi nabad ku joogtaan annaguna aan ku nimaadno dhiigooda way waxaan ku socono marka hore dal aan ciidan lahayn ciidankiisu macna lahayn qurux badnayn tayeysnayn cadow iska micili karo ciidamadu shacabka ilaayaane argagixisada caldheere iyo dada magacyadooda sheegay in la sheego looma baahna maanta dadku waa laba qodob qofka afkiisa shabaab kala baqaya waxaan aaminsanahay inuu ayaga ka mid yahay waa inaan la dagaalano waa inaan iska celino waa mid dhaawac qaadayo mid jiida jooga mid wax karinaayo maxay tahay marka ujeedada aan idinkugu nimid xoolamaha inaan idiin sidno wax la qaado ama wax la bixiyo nafta bini'aadanka ugu wanaagsan ugu qiimo badan waxaan idin muujinaynaa inaan idinla qaybsano dhacdooyinka xanuunka badnaa ee ka dhacay beledweyne inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku dhaceen inaad ogaataan ogolaataan qadarta Ilaahay aqaadatiin dhacdadii 14 Oktoobar wax ka xanuun badan miyaa jira maalin walba xamar waxa ka dhac Soomaarkinina xamar ama beledweyne joog ama jiida joog meesha ugu dambayso ama jannaale joog ama Minnesota joog qofaan Ilaahay dileen ma dhimanayo taasaan wada qaadano waxay la tahay marka maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir intaan wadada soo soconay ilaa xalay intaas buwana mar walba qad ku loogu jiray ujeedadana waxay tahay halkan meesha aan joogno waa deegaankeeni waa degmadeeni waa degmadii Buulaburto waa meesha wasiiradeenu ku soo korto Soomaa wasiir Khadiijo waa ku faraxsanahay marka waxaan u maleynaa inay ku dhalatayba ama waa ku barbaartay waa u Hirshabeelle ha ahaato saxaafadda iyo ciidanka iyo qof walba oo Soomaaliyeed waa un fariin inaan sidno ay tahay inay naga go'an tahay inaan dhiiri gelino koow ciidamada dagaalamaya ee macaawisleyda ee diiday gudnimada inaan dhahno waa mahadsantiin hore u socda qodobka labaad wuxuu yahay ciidanka tuutaha xiran ee jiida ku jira ee aan soo baxsanaynin oon soo laabanaynin ee baxsanaya cadowga ayagana inaan dhahno guulaystayaal garabkiinaan soconaya hore u socda waxaan rabaa marka ugu dambayn annaga haddaan nahay maamulka gobolka haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed meel walba gabdhaha Soomaaliyeed ay joogaan sida gabadha hadda gudoomiyaha ahayd halkan ka hadlaysay waxaa inaga go'an inaan idinla joogno idinla jaarisno idinka maqnaanin waxaan xasuusanayaa 9 saac habeenimo dhaawacii beledweyne laga qaaday inaan biyaha iyo dharka iyo maxaan ku dhahaa wixii lagu dhibcinayaan la dul taagnayn annagoo ah haweenka Soomaaliyeed ujeedaduna waxay ahayd inta markuu ku dhaawacmo haddii la qaado dadka gacnaha u dhiganayo waa annagoo qaadayo marka dagaalkan idinkula jirnaa habeenii maalin idin dul taaganahay waxaan ku faraxsanaa dhaawacyadii beledweyne wiil ka mid ah diyaaradda isla saarnay oo yiri jiida inaan tago maahane marka reer beledweyne geesinimadiina waa ciribtirka argagixisadii al-shabaab waad bilowdeen waan is wada raacaynaa waxaan rabaa ugu dambayn fariin inaan u diro gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan qofka maaragtay iska joogarayna ama dacaayadaha annaga danta meeshaan uma imaanin igu sawir maan imaanin uma imaanin dhoolatus ee waxaan u nimid inaan ciidanka iyo dadka aan ehelada nahay aan u muujino naftiin iyo teen oo isku mid tahay oo na kala sokaynin oo hal qof aan nahay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo inaan iraado heeska yaraa gubaabada ahayo ciidamada Soomaaliyeed lagu dhiirigelin jiro inaad ii timaadaan waa jeclaan lahaa ubax iyo halkaan aad timaadiin
وان قرنايي إنان كقدبين ورسناي حليمات وان قرنايي إنان كقدبين قورع شبابك إنان كقدبين قربكينا سعنايي كشك يغو قولستا قربكينا سعنايي كشك يغو قولستا 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 قول لقرايو قولستا وان قرنايي إنان كقدبينو وان قرنايي إنان كقدبينو قورع شبابك إنان كقدبينو قربكينا سعنايي كشك يغو قولستا قربكينا سعنايي كشك يغو قولستا 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 قول لقرايو قول صوماليا صوماليا الشباب 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 شباب وذا نبتيو داوع باتايو دركني أذا حرتيو دمنا نولين waxaan rabaa waa la hadlay odayaashayga waxaan maleynaa cali qaansuweyneen oo ahaa wuxuu ka dhawaajiyo yiri meeshan hadal waxba kama taraaye dadka dagaal ay ku jiraan dadka maxaa loo hayaa warkaas war gar ah waaye war in laga jawaabo loo baahan yahay waa yahay dawladana hawshaas waa ku gudi jirtaa runtii laakiin annaga naftayna annaga dawladda ka mid ah sida aad la socotaan wafdigan hadda maanta idin soo gaaray waxaa ka mid ah oo aan hilmaamay oo aan rabaa runtii inaan si fiican ugu mahadceliyo maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir haddii uu soo xasuustay walaalahood reer guulo burto iyo weliba la taliyaashii madaxweynaha oo ay meesha joogaan oo baarlamaankii uu joogo oo golahii wasiirada ay joogaan oo xildhibaanada ay joogaan horta cid idin ka maqan meeshaas ma jirtaa muu malaynaya cid idin ka maqan inay jirto waa fahmi kartaan in dhammaantiin in dhammaan dawladda iyo organiska kala gedisan oo ay ka kooban tahay inay idin garab istaagan yihiin waxaa intaas dheer oo aan rabaa inaan u sheego dadka halkan joogo horta dadku haddii aysan ayaga wax qabsanin waxba looma qaban karo ilaahay wuxuu yidhi laa yuqayiru llahu maa biqawmin xataa yuqayiru maa bianfusihim adinka markaa xaaladda a ku jirtaan ay wax ka bedeshaan buu ilaahay in idin garab istaagaa hadda annaga xaaladdan ku jirnay waa maxamed cabdiqaadir waasiin ka hadlay dagaalkii inay matabaan ka soo bilaabeen ilaa ay hadda ilaahayna waana garab istaagaa dadkii awal shakiga qabayna waana garab istaagayaan sababtoo ah waxaan tusinay adinkana aad tusteen in shabaab lala dagaalami karo oo meel la saari karo maadaama aad saas tusiseen hadda wixii ka dambeeyo garab istaag waa filanaysaa hadda wasiir khadiija waxay ka dhawaajisay abaabul yar oo ay haweenka ururka haweenka soomaaliyeed oo ay weliba ay hormuud ka ahayd guddoomiyaha koobaad ee baarlamaanka iyo marwada madaxweynaha inay yacni wax kale iska daaya inay gacmahooda buskud ay ku soo dubeen inay soo dhiibeen intaas wax ka weyn oo mooralka dadka dagaalka ku jiro mooralkooda kor loogu qaadi lahaa anigu ma garanayo marka waxaa la rabaa inaad ogaataan in idin garab istaagan yahay annaga halkanaan bays ka dhigan doonaa insha allah inta naga maqan halkanaan bays ka dhigan doonaa dagaalkana waa soconaa dagaalka waa soconaa dawladda wixii xaggeeda idinka jira annagaa mas-uuliyaddaas qaadayno ama ha noqoto xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha ama inaan la hadalno u tagno madaxweynaha ha noqoto waxii baahidiinna ah waa ognahay anigu meeshaan magaaladan aan ku dhashay aan ku koray waxaan rabaa dadkayga dhibka gaaraya inaan la qaybsadaan rabaa haddii aan wax ka qaban karo aan ka bedeli karo inaan ka bedelaan rabaa marka horta mid waa ogaanaysiin laydinkama aamusno waa laydin garab taagan yahay waa idin maqannahay waxa aan hadda keenayna wax ma aha dawladda aan ka keennee
ودد مورال كينا إن اللسان قبل كهوانك قبل كبنادر محل هذا قدوميها برلمانك وزير خديجة أباب الأي باللابين أيا حتى اللي ذنبو يمد سيدا أي شيكتي أنا وحان وحودنا معها ددك أبارها أي ساميين وحان وحودنا وحنين نقرب استاغنا وعيدا كفهمت تاغنا دغالك كتير مركا إن شاء الله سيدا ماما خديجة كده واجسي قدوميها قبل كبنادر أيا هرتا دغال كان يا باب الكيسة بالله كاها أنا ما ربنا إن قدوميها حدين عمرنا ما ربنا وحان ربنا إن قرب استاغنا إن الله شقينا إن جوبابينه إن المورال كيسة لسنه إن الشباب لقى سارو قبل كهيران كلية ما هي سوماليا ولا لقى سارو سيدا دكتور وزير خديجة سيدا شاكتي وحان ربنا إن العيدة قارسينه إلا يأفق وقد كنت الناف وهارئة طبعا ناف وقيلة وعيدنك aan rabno inay dagaalka ku galaan wixii ka dhiman intaasaan sheegnayna ma aha wax dawladda ka yimid hadda ma aha waa wax abaabul iyo tabarucaad dad raba moralka inay kor u qaadaan keliya ka yimid waayo marka waxaan rabnaa tii dawladda waa noo dhiman tahay annagaa ku maqan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha annagaa ku maqan waa u tegaynaa wixii baahidiinana waa gaarsiinaynaa waana liidina soo gaaraa waxaan aniga aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta meeshaan taaganahay anaa weligay hiiraan meelna ka tegin sababta ay keentay inaan runtii soo istaagana waxay tahay kursiga aniga aan ku taaganahay waxa ugu horeeyay oo i doortay waxa ugu badnaa reer hiiraan special sidii xildhibaan maxamed uu sheegayay reer buulaberde marka codkii la isiiyay waa anigaan maanta ku taagan waa in looga mahadceliyo marka xildhibaanadii meeshaa ka soo jeeday waxaan rabaa inaan hawsheenna aan u maaragtay gudagalo haweenka soomaaliyeed oo u jeedeen waxaan rabaa inaan nabadoonka la hadlo in annagoo aan nala dirin aan qaadanay dirayskii macawisley aa u jeedeen markaan qaadanayni ma ahayn nagu sawir waxaana idiin caddaynaysa inaysan igu sawir ahayn maantaan idiin sheegi lahayd oo idin dhihi lahayd kaamirooyin noola soo istaaga sidaa la hadligeed ma aysan hayn nagu sawir waxay ahayd gabdhihii gurayay timirta iyo oo dubaynay burka oo maaragtay sisiyeeriga raadinayay waxaanu u istaagnay ma ahayn abaaro ma ahayn meelo kale waxay ahayd askarta hadday macawisley tahay iyo haddii ay yihiin maxaa la dhahaa ciidankii qalabka siday oo meesha idinla dagaalamayay iyo dhallinyaradina inaa idin soo garab istaagnaayay ahayd waxaa u taagnayd midda labaad aan rabnay inaan idiin sheegno waxay tahay anigu waxaan ka turjumayaa maanta baarlamaanka waxaan aad ugu faraxsanahay inay 6 xildhibaan ila joogaan oo wasiiradda ka mid tahay macallimo 2 xildhibaan abdawraha waxaan rabaa inaan inta ka caddeeyo haddaan nahay baarlamaanka 330 ama sanataraha ahaadaan ama golaha shacabka ha ahaadaane inta uu socdo dagaalku inay u goyn doono lacag ciidamada dagaalamayo cadowga ku socda awoodda ma lihi ani inaan qarraro lacag intaa tiro leeg sababta guddoomiyaha jira xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa inay ila baas garayn doonaan maalinka lagu dhawaaqo lacagtaas inayna soo garab istaagaan hadday sanad socoto iyo hadday 6 bilood socotoba baarlamaanku inuu jari doono lacag ilaa iyo intaasoo aan garabkiina taagan lahay wax ka weyn oo geeskiina aynu ku istaagi lahayn ma jirto waxaan rabaa inaan inta uga faa'iidaysto oo TV-ga iga arki doona gabdhaha reer hiiraan ee jooga Yurub oo jooga North America oo jooga Carabaha inay ismuujiyaan oo u istaagaan oo gabar walba ay iska goyso lacag oo ay soo garab istaagaan hiiraan waxaan ogahay inay ku filan yihiin gabdho wada shaqaysta special ani waxaan ka imaaday Mareykanka Minneapolis way wada maqlayaan gabdhaha reer Minneapolis oo reer hiiraana inay soo istaagaan baa raba inay inta magacyadooda ka sheega ma rabo sababta aad bay u badan yihiin inay istaagaan inay lacag aruuriyaan inay account furaan waxaan rabaa inaan tusno ragga nooma ogola jagooyin laakiin inaan tusno inaan dagaalka inaan qayb ka noqon doono oo 70% ida ka noqon doono hadday dhaqaale tahay hadday garab istaag tahay waxaan inta rabaa inaan uga mahad celiyo
laba xildhibaan aan aad ula diriri jiray oo laba gabdhood soo bedelay maanta way joogaan labada xildhibaan dirayskooda waxaan u soo xirtay wallaahi oo aan la rabay inaan garab istaago waa xildhibaanada xildhibaan maxamed laba xildhibaan maxamed maalinkaan arkay iyaga oo taagan furinta waxaan ogaaday inay mar walba aysan ahayn anaga cugdad baan u qabnay waxaan dhihi jiray waa gabdhaha looga bedelay meesha laakiin laba maxamedoo waa idin mahad celinaya doorashadayda garabkaygay taagnaayeen anna waxaa idinka ballan qaadayaa aas baarlamaan ahaan maalinkaasna inaan idiin yeerno oo aan isla baas garayno oo aan lacagta idin maaragtay u goyno dagaalka hiiraan waxaa ogaataan reer hiiraan inaad nasiib badan tihiin inaad magac leedihiin weligayba ani maqli jiray dadka ugu geesisan baa ka dhasha ama madaxweyneyaal ahaataan ama ha ahaadaan hogaamiyayaal laakiin ani waxaan qirayaa inaad noqoteen Soomaaliya qolada ugu horeysay oo u istaagay dagaalkan waxa la idinka sheegay Washington DC waa u jeedeen inay Mareykan la soo saaray magaciina beledweyne hiiraan la idinka lahaa marka sida la adligeed waxaan noqonaysaan ina calaalka iska daysaan inta wax ka noqdaan inta wax ka noqdaan wax idin gaaraya male idinka istaagteen qarash baa la idin garab taagan yahay cunadii baa la idin la garab taagan yahay daawa la idin la garab taagan yahay horta waxa ka walwashaayaysi jiray waa nasiib badan tihiin laakiin qalbigiina u sheega intiina taagan waxa ayaan darro ku dhacday oo nasiib darro ku dhacday kuwa ku jira oo la leeyahay xabada la galiyo laakiin ani waa hubaa inay meesha ugu xorrimo badan ay noqon doonto waxaan rajaynayaa anoo dirayska dhigay oo dirac watayna idin imaado marka labaad